صمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. waxa kale lagu dooranaya xagga da'da odayaashii ha xanaaqaan xagga da'da gabadh haday istiraahdo in guurso oday maxay kula hadli muxuu iyada kula hadli ya odayaasha caruuroogu ku dhacay hablaha yar yar daba carara kuma anfacayo kugumana soo baxayo kuf waxa la dhahaa kuf da'eed waxa la yiraahdaa baa jira kufkaaga da'eed iyo kuf ijtimaaciya qofad isku soo aqoon dhowdina isku aqoon tihiin oo isku hidda iyo dhaqan tihiin oo waxa weyn Allahumma salli ala Muhammad hatta inan reermiya iyo inan reermiyi isma wada noolaan karayaan way adagtahay waxay ku dooranaysaa oo waxa weeyaan shuruudo iyaguna najixinayo oo guuleynaya guurkeeda qofkay guursanayso inay isku jinsiyad yihiin inay isku dhaqan yihiin inay isku hidda yihiin waxa la yiraahdaa guurka ajnabiga guur kasto ajnabihi nihayadiisu waa dalaaq waxay kala ku dooranaysaa inuu nin kufkeeda ay yahay xagga mustawaha aqooneed qof aad iskaga mid tihiin oo isku soo dhowdihiin oo isfahmi karaysaan ayaa lagu dooranaya su'aasheeda labaad ilma hal bil ah haduu soo dilmo dhiiggaas toban beri wixii meel tukanaya mise ilaa intuu ka dhamaanayo waa la sugaya jazakallahu khayr حكم النفاس ميقاضا نيسا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لها horta waxaan ku baraarujin lahaa fadwada waxa loo yaqaano waa darajo ay culimadu gaaraan anigu ma gaarsiisni أنا كفضوان كرا لكن وحن كجوابيا سال علماء كم قلي أيام بانكو جوابيا له يدنكي تان صلاة دي أي جودا حلقي قاعدو صلاة دي صباح يسوق شو سنه ما تكنيسة سنها سوا سنة مؤكد رسولك عليه الصلاة والسلام حكى سجنين أنا ولقي كتجي هدو سفر يهي يحدو حاضر يهي تانا جبرنا مساجد ك ما دام أنا كنت كنا نقول جدي كنت كنيسة حلي كستوي ساق عضو ويتكنيسة xilli kastay soo kacdo sunnaheedu wuu u jiraa goor kasta xataa hadii salaada masaajidada lagaga jiro adigu soo kacdo sunnahaagi baad tukanaysaa waajibkaagina waad raacinaysaa taa xukunka nifaaskana waxay yiraahdaan culimadu 40 haduu gaaro 40 casho haduu gaaro oo ilmahaas haduu 40 casho gaaro ama uu ku jiro caloosha 40 casho waxa la xisaabinaya hadii uu soo qubto intii la sugay nifaaska oo kale intii nifaaska la sugay baa la sugayaa oo ay ugu badnayd labada bilood 15 kuna ay ugu yareen say culimadu yiraahdaan wallahu a'lam wa ahkam su'aasha labaad yaa gabadha fadhiisadana ku keenay bismillah su'aasha waxay tahay qof aan ku qabilado qurbo macaan ku wadan karaa qofkan waa xaaskayga oo kaleeto qof aan ku qabin ku soo dacwoon karaa waa xaaskayga caadiya waxa weeyaan horta waxaaba iska cadbo mutaarifi calayhi dawaaba beenba haba ku qababa dambina qofka muslimka waxa ugu filan inuu been sheego nabi maxamed wuxuu yiri al-mu'minu la yakdib qofka muuminka been ma sheego buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xayaa badan buu rasuulku tiriyo qofka uu ka dhici karaa laakiin beenaala ma aha buu rasuulka qofka muslimka ahi waxa kale oo iyaduna ka sii aswaasan haduu maxaarimtaadii noqdaba oo qof wax weyn ama walaalkaaya ama qof aan ku geyn uu noqdo hadana leewaan qaba waa musiibo kale waa iftiraa iyo khiyaamo kale marka ma banaana
بنان الله عليك waxaan jeclaan lahayn maadaama ustaadada ay daaciyo tahay arrimo dacwada ku saabsan iyo gabdhaha rabaan horumar inay sameeyaan inay su'aalo gabdhaha rabaan in lagala taliyo arrimaha guurka مثل ما تشوف أنا صافر يستوي حاسب الدينين يقولوا ما ضرب واضح لا ساعة تواسوبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aamusa waxir calaykum salaam isdhageysana macallimada waxaan weydiinayaa gabadhu maadaama ay tiri su'aalaha guurka anoo uga faa'iideynaya gabdhaha waxaan leeyahay gabadhu shakhsigay dooranaysaa waa shakhsigee hooyadu way idin xushay soo ma arkaysaan karfoonka ficna soo celi su'aal muhiim weeyaan xulis weyn bay idin samaysay waxay tiri gabadhu maxay wax ku dooranaysaa ama ninkay dooranaysaa waa nin caynkeeya soo ma yaa nabi maxamed baa inooga jawaabay calayhi salaatu wasalaam ilaahay iyo rasuulkiisaana inagu filan taladay bixiyaanna waa taladii ugu dambeysay weeyaan waayo waxay yaqaanaan ciday la talinayaan iyo waxa ku habboon ayay yaqaanaan ninka iyo gabadha muslimadaaba waxaa lagu doortaa waa diin walaalayaal diin ayaa lagu doortaa nabi maxamed wuxuu leeyahay idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqah fasawijuuhu buu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu idin yimaado mid aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa waa ragga loo sii raaciyaa waayo dhaqan badan ayaa ku tacalluqa oo waxa weeyaan waa maamulkii guriga hadduu idin yimaado nin diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad raalli ka tihiin u guuriya buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa ilaa haddaad samayn weydaan takun fi lardi fasaadun kabiir buu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam fasaad kabiira baa iman doona oo dhalan doona qofka waxaa lagu dooranayaa diintiisa akhlaaqdiisa ayay gabadha muslimadda ay ku dooranaysaa waxay ku dooranaysaa oo waxa weeyaan shuruudo iyaguna najaxinaya oo guulaynaya guurkeeda qofkay guursanayso inay isku jinsiyad yihiin inay isku dhaqan yihiin inay isku hiddo yihiin waxaa la yidhahdaa guurka ajnabiga guur kastoo ajnabiihi nihaayadiisu waa dalaaq waxay kaloo ku dooranaysaa inuu nin kufkeeda a yahay xagga mustawaha aqooneed qof aad iskaga mid tihiin ood isku soo dhowdihiin ood isfahmi karaysaan ayaa lagu dooranaya waxaa kaloo lagu dooranayaa xagga da'da odayaashii ha xanaaqaani xagga da'da gabadhi hadday istiraahdo ina guurso oday dee maxay kula hadli muxuuse iyada kula hadli yaa odayaasha caruuroogu ku dhacay ee hablaha yaryar daba carara kuma anfacayo kugumana soo baxayo kuf waxaa la idhahaa kuf da-eed waxa la idhahda baa jira kufkaaga da-eed iyo kuf ijtimaaciya qofaad isku soo aqoon dhowdiina isku aqoon tihiin oo isku hiddo iyo dhaqan tihiin oo waxa weyn allahuma salli calaa maxamed xataa inan reer miyiya iyo inan reer miyihi isma ma wada noolaan karayaan way adag tahay inan wax baratay iyo inan aan wax baranin ma wada noolaan karayaan markaa inay dadku isku soo dhow yihiin oo kuf uu ku yahay kuf ayaa qurux badan waxaa lambar 1 ah ilaahay diintiisa lagu dooranaya rag iyo dumarba diinta ayaa lagu dooranaya ayaa wuxuu la Xasan al-Basri hadaad gabadhaada nin diin la siisay buu yiri markuu ugu yar yahay buu ma dulmiyayo hadduu jeclaadana uu karaamay buu madaxiisa saarnaan haddii uu nacana ma dulmiyayo buu ma dulmiyo markaa diintu barakay leedahay walaalayaal diin in wax lagu doorto baana deeq ilaahay oo dhan ay ku jirtaa ilaahayna rag diin la haydisiyo barakays waxay u baahanayeen baa neefta ku dhageysa la jiibad u soo doorta بسم الله الرحمن الرحيم شيخ
كم أستاذ waxaan rabaa inaan ku weydiiyo gabar walaashay ah gabar walaashay ah iyadoo yar nin la siiyay markii ninkii lagu daray yaa hadda markay soo xoogaa ay 3 sano ka soo wareegtay oo soo caqliyeysatay yaa waxay tiri ninkii ma rabo ninkiina waa muxuuha ونهرسي ويكون مهرسنتها ها بس وحو مسيو وحلا وحو سيان ماله ان بيلي وحو مسيو يدنا waxay leedahay ilaa willa ma doonahayo isaguna wuxuu yiri kuma furahayo maxay sameeyay markay gabadha oo si celinaysa su-aashaasoo kale qaadiga ayaa xukuma waayo inagu hadee daraf qurun bay noo sheegto darafkii kale war uma hayno marka labadii dhinac bay warkooda la helo baa la xuquuq xukmin karayaa marka qaadi baa loo geynayaa qaadi bay u tagaysaa insha Allah qofkii su'aal qab xagga hore u imaanaya maadaama ay kala bixinayo kaamirada la diiday in xaggaas loo sii jeediyo marka halkan la imanaya su'aasha ustaadada laga weydiinaya بسم الله أستاذ حويدينا يا قبلها جعل دعوة إني سو كقب قاتان أما وحبدا وعي كليان ضد كذا سده لو بيرين كلي كذا قبلها كعبسنا يا دعوة إني أصبحان طلبا هذا ويدينا وحيد هاي وحيرة أستاذ رجها لو دور تدين معلومات كده آذان ونعي والله ودي بطين معلمينتا آذان ونعي قبل بدل راح أركسها مركز هذه ويل معلنا يعني أقوله قبل يسوع راديو كله يحكوا هذا معلم بيجو شيء شيخة ودونك ونعي معلم المركز مرسلين كرا معلم هو بني آدم ضدك وحي أمسين بدنا ضدك وحي أمسين بدنا qofka haduu ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa barto ama uu daaciyahay ama dacwada uu wado inuu waxba ka dhicin oo nadiif yahay oo insaanka uu ka dugan yahay uu saqaldameenin uu waxna haleenin taas ayaa macluumaadina ka hadasho insha Allah barakallahu gabadha dacwada si loo guurin hablaha من دبول كريا حبلها دون ينا إلهي دينتي سيد دعوة كشقيان دعوته وحويا وفرض العين على كل مسلم قف كستاء مسلم أي دعوته أي واجب كتاي وحاني نقانا يساو قف كاسدتك وقويريا حسب علمه انتو سقو يقانو أيو وقويريا داعيبو ما ها شرطي إنه عالم نقضه وحول بيقانه دين تورن لكن وحو يقانه أيو دتكو يقانه ولو ذاقيا وحلو قد يرجعن كرا إن أنت علمي أهان أما إعداد دعوة الله سمايه توبر للسياق ضابط يقابك الله هذله هو حويان اللهم صل على محمد مواضيع الله دياري يقابك الله تشيديو أنتوا حويان هو متعارف عليه ولا يقانا إنه برته oo ay tadriib ku qaadato kadibna ay saaxadii ku soo biirto oo dacwada fardigii ka bilowdo hadana dacwadii mala ahayd ama dadkii aan jamaacada aha ay u soo korodho waana mumkin waana suurtagal waana la suurtagelin karaa qofkii doona ee qalbigiisa ka doona inuu Ilaahay diintiisa iyo dacwada iyo diinta uu ka qayb qaato su'aashaada labaad oo ahayd hablihii macallimiintii bay naceen iyo wadaadadii waxa keenaya horta kala socodka qofka muslimka ah haduu diintiisa ku dhaqmi waayo waa musiibo weeyaan waa nabi ilaahay maxamed wuxuu leeyahay haduu idin imaado qof diintiisa iyo akhlaaqdiisa ka raali noqoteen diintii waynu isla garanno waa wadaad laakiin akhlaaqdiisa iyo qaabku uu dhaqmo in wax laga ogaado dee loo baahan yahay akhlaaqdiisi in wax laga ogaado diintan xataa ma ku dhaqma ayaa isweydiin la quraankan ma ku dhaqma
ayaa isweydiin la markaa qof akhyaar ah oo la yaqaano oo diintiisa iyo akhlaaqdiisa laga raali yahay weeyaan kala dooranaya laakiin kan munafirka ah ee hablaha quraanka nacsiiyay ee waxa weyn Allahumma salli ala Muhammad haduu doono wuxuu doono ku dhaqmaya de waa bashar waa bani aadam oo gabadha yarsigu caan oo qurux badan bay u soo dhigtayo de waa bashar waa kullu bani aadam khada buu Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam bani aadam koodhan uu khaldama bani aadam koodhan uu khaldama malagna maaha macsuumna maaha khaladna uu ka dhici karaa qof daaci ah ama qof xaafid al-Qur'aan ayuu khalad fool xumi uu ka dhici karaa oo ka iman karaa dadka oo dhan xukun kaliya lama wada siin karo lama wada oran karo macallimiinta oo dhan way xiyihiin macallimiintu waa macallimiinul khayr weeyaan waa dadka ugu khayrka badan leh waliba haday quraanka dhigaana khayrun naas bayhiin khayrun naas oo rasuulku wuxuu ku tilmaamay dadka waxa ugu khayr badan qofka quraanka barta ee dadka bara alayhi salaatu wasalaam marka mid sun ah ama saradaan oo ku dhex jira yaanu idin nacsiinin macallimiinta khayr badan bay leeyna Allah barakeeyo صلاة المغرب إنه دوام واختبي هذا بسم الله محاول دنا هو يشجع أبيه مرة رئيدي هو إذا وكلت عن مهر مدرسين حدنا أبيه وادنتي ولا لا ويجي وين وأبيه دلنا جوجا مهر كمكان ولا هدي هو إذا يعني مدرسين ويلش ما دي بكرة أما قف كستدي بكرة أنا حتى أطول ما دي بكرة هذا مهر كل سنة أنتي مرة واكل تجان مهر كنا نسي مرة هذا ويل أنا يلو وين وأبيه دلنا جوجا هذا كوين ما ديبن أنا ما ديب كرا ودين ويان واد كبخن kartaa waalidka wad ka bixin kartaa adiga iyo walaalaha waa ka bixin kartaa waana ka gudi kartaa birri iyo samafalad waalidka u sameysana way ku noqonaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maama su'aal soo dhibatay waxa waaye su'aasheeda waxa la dhaqanay meel wadamo fog bay Soomaalidu tageen marka gabadheeda haday wiil kale u keensato ajnabi ah oo macnaha maxay sameyn kartaa tar ahaan maxaa kula talin lahayd kol ayada raali kuma ah maamada laakiin gabadha ayada wixii raali ku ah oo wadata marka tala inaa siisid barta islaam waxa kala shardigu da waxa weeyaan inuu qofku qof muslim yahay weeyaan waxaan kala waa sanawiyaad weeyaan qofka in la isku dhaqanyo in la isku diiyo kullaha haday iyadu raali ku tahay أنا waxaan jeclaan lahaa inay ka joojiso oo biay duruq ay kaga joojin karayso guurka inay ka joojiso oo ay raali ku kala yihiin laakiin haddii ay joojin kareynin waa qof muslim oo u banaanta way siin kartaa waxaan ka raali gelinaynaa shaahi oo daatay biyihii marka qaybtii hadda la keenay way go'een qayb kala la doonay wax yar naga raali ahaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله نبحي waxaan ku weydiinaya inaan baa isoo dhiibatay waxay tiri waxaan hayaa xoolo agoona arur yaro agoona xoolahoodii baan hayaa marka gabadhan saaxiib nahay oo aad isku fiicannahay oo aamina bay igu tiri maxay aheeday lacagta wax iga deen iga sii marka deenka ma bixin karaya walaa lacagta agoonta may sadaqa xataa lagama bixin karto جزاك الله خير ولا الوحر يرادان علماء الله سبحانه وتعالى هاي نوحفتي علماء هرت سؤالها إمك الصعداء أردني صح ما هينا نروح كجوابه جوابه ما هفتاوه وحفظ أوقف كستاويس كيل هذا أما هو كجوابي كرم وان قرنا يا لكن مستوي هذه مئه مرتبة دي سمة تاجني لكن وحيرادان علماء صدقاء لقما بحين كرو أما لقما بحين كرو
xoolaha agoonta looma dhowaan karo waxaan saka ahayn oo laga bixin karaa ma jirto cidda iyaga la nool ee howlahooda u maamusho unbaa siduu ilaahayba ku dardaarmay si mutacaarif calayhi ah wax uga qaadan karta oo aanay ku fasahaadinaynin agoontu aad bay u howl badan ilaahay xilkooda haynagu asturo أستاذ سؤال ويديني سخر الله سيئ مايا وحنا waxa iyaga u faa'iideena si toosiya ama ma sha Allah bismillah ustaadada waxaan weydiinayaa waxa batay hadda markay nimankii la guursadaan haweenkii in ay saliid ku shubaan ama ay dhagax ku dilaan ama ay midi galiyaan shariicada islaamku maxay ka qabtaa gabadhaas hadduu wiilkii dhinto oo maseerka intaa la eg ma masayra mase waa shaydaannimo bal noo sheeg hablihii islaami malaa ma joogaan dhalinyaradii baa jooga ustaad Fardowsay waxa weeyaan iyaguna maseerkaabay sii baranayaanbe maseerkaas oo kale lama idhaado waa doqonnimo la idhaado kaas waa axmaqnimo weeyaan doqonnimo weeyaan maseerku waa maxmuud waa sifo qurux badan oo qofka muslimka uu leeyahay oo waxa xun ka qiiroodo oo uu diido gabadh kasta oo ama qof kasta bini aadam wuxuu jecel yahay inuu keligii wax yeesho gabadh kasta waxa jeceshahay inuu ninkeedu keli u ahaado haddii ilaahay ku arsaaqo subxaanahu wa tacaala haddii cid kala timaado oo ilaahay u keeno waxa uga yaala laba mid u yeeli kartaa inay ku gashay nolosha ay ku noolaato ilaahay ugu sabirto tabaaraka wa tacaala iyo inay tiraahdo kuma sabir karayo iyadu markaa go'aan insixaab ah ay ka qaadato oo ay ka insixaabto nolosha xaq iyo xuquuq ayay u leedahay inay iskaga tagto xaq iyo xuquuq bay u leedahay qofka heblaayada dambe ha la furayo heblaayada dambe ha laga noqdayo كل هذا مدنا بحق وملها قف كنا نفتيس دبعتي سوي ويوحوا مهلك جلسانا وحوا طلابين كوقف واشحون لما صير كحلا رقيبوا لي هو وقيبته وجود قنصمرة معانج قبالة على أمريكا ومعانج جوية أمريكا قف كمسلم كهدود ده كوجود أنتو ده واحد نقارس قف مؤمن أهد لي سجنا هذا عمد ند الشو جزاء وحنا نقارن يوم النار جهنم كوار تولي جاي الله هاد كترت إلهي من كم جنجلنا تبارك وتعالى الله أعلم خوف النساء gabadha halkan ka noqotay su'aasha weydiin rabteen ha timaado بسم الله أستاذ وحويدين محا وحويدين لها إن بدن سؤالها عن قبل بدن عن إسويديني زوج كيجا ويسمى كجمية جبني كراه أما كم جبني كراه سؤال شلوات بحيث سؤال labaad waxay tahay waalidkeen wuxuu xanuunsan yahay walaashii ama iga yar ama ilmaheena iga yar ma ka bixin karaa fidriga sakaat fidriga ma ka bixin karaa gabadha waxay ustaadada weydiinaysaa zawjkayga weysada ma iga jabiyaa ama aniga ma ka jabiyaa su-aasha labaad ay weydiinaysana waxaa weeyaan walaashay oo yar oo ila joogta oo anigaan mas-uul ka ahay zakaatulfitriga ma ka bixin karaa waalidkiina wuu xanuunsan yahay dabcan waxaan ka fahmay in waalidku waxba haysan taa weysada horta waxa weeyaan culimadu waxay dhahdaan maya kama jabinayo
ama jirna taabasho xabag ma dhib ma laha iyaduna kama jabinayso isaguna kama jabinayo bay dhaadaan culimadu tan Allahumma salli ala Muhammadin fidriga adaabay de kula nooshahay qofkii yarayd waxaad ka bixinaysidna waa 2 kiilo iyo badh ugu badnaan marka maadaama waalidka xilkeedii qaadi karin adigana ay kula nooshahay adiga ayaa ka bixinaya adiga ayaa mas'uul uga noqonaya insha Allah waalidkana dawad la socodsiinaysa inaad ka bixinaysid ustaadada waxaan weydiisanaynaa insha Allah tacaala dardaaranka ugu dambe su'aasha ugu dambeysay ha noqoto haye kaalin حاجة نسكسها استاذ waxaa weydiinaya anoo yarba waxa dhimatay hooyaday marka soo weynaada waxa la ii sheegay inay dad jireen oo hooyaday diin ku lahaa soo dadkii waa raadiyay waa waayay waxa uu sameyn karaa gabadhan waxay su'aashay ustaadada hooyaday waxay dhimatay anigoo yar waxaan ogaaday dad deyn ku lahaa inay jireen dadkii ma helin maxaan u samayn karaa hooyaday maadaama deyn lagu lahaa deyntii maxaan ku samayn karaa ilaahay hooyada ha u naxariisto iyo hooyo kasta oo dhimatayba waalid kasta oo dhintay ilaahay ha u naxariisto tabaaraka wa tacaala waalidiinteena inta noolna ilaahay subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf ha siiyo ilaahayna ha u naxariisto intooda bugta waalid badan baa xanuunsanaya oo waxa weeyaan hooyooyin leh oo aabbayaal leh qof waliba wuu garanayaa qoladii aniga ii sheegtay iyo qolada aan ii sheeginba waalidka ilaaha koon kale waxaynu uga marteenaa inuu ilaahay uu caafimaad taama ugu deeqo caafimaad dhiigooda iyo dhuuxooda iyo lafahooda iyo xubnaha jirkooda oo dhan inuu ilaahay caafimaad u geliyo ayaynu ilaahay u weydiinaynaa birrigood iyo samafalkoodana inuu ilaahay nagu arsaaqo baynu weydiisanaynaa waalidadaa dhimatay ay inantaas ay weydiinaysana in ilaahay u naxariisto iyadii waalidiinta muslimiintaba waan u soo socdaa waxaa lagu samaynaya Allahumma salli ala Muhammad haddaad qadarkii aad garanayso deyntaasi ay ahayd waad u sadaqaynaysaa adigoo ciddii lahayd u qastiyaya ciddii lahayd ayaad sadaqada u qastiyaysaa dad raqamkeedii garanaysa ama intay ahayd waad u sadaqaynaysaa niyadaadana waxaad ka dhigaysaa inaad deynkii waalidka oo aad sadaqo u bixisay ilaahay inuu sii gaarsiiyo ciddii lahayd tabaaraka wa tacaala haddii ciddii lahayd la ogaadana iyagii baad siinaysaa ودنبين منظمة الإحسان قيب هذا دمرك الأستاذ وحاويدي سنة تلوين كسابسن برنامج كانوا بالله وما أنت سيدي أركيسي الأبح هيا هنا نوجسو خاتم ضد وحيليه الأستاذ هلو سدو عيسو إن شاء الله يلا وقت السنة يا ما شاء الله غير إحسان إلهي سبحانه وتعالى وحنا كبر إياه juhdiga dacwadeed iyo dadaalka haysan in ilaahay miisaanka xasanaadkiina idin ku daro maalina u baahi badantiina in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abaalmarintiina jannatul firdaws la'ala ilaahay ka dhigo khayrun naas anfa'uhum linnaas baatihin ilaahay diintiisa baa dadka ugu yeedhaysaan oo dadkiini baraysaan miisaanka xasanaadkiina ilaahay ha idin ku daro juhuddiina ilaahay ha barakeeyo camalkaas waxaan idinku boorinayaa inaad sii wadaan waliba dhalinyaro badan ayaa maanta joogta dhalinyarada in mawaadiicda هذه قرالة دمرك كنت تعلقة أما قبل مسلمة داي مسؤوليات كده إن بدن لجو براروتشيا ولا جلا هذلا مسابقات كأي سؤالها ترتنه هذه أتقوان كرسانة سوكر دين كرتان معلومها قاركود نشاط فرا بدن إن أدوس ما يسوي دن يرد نشاط كي أي شيء عليهن إن دن يرد بدن كقيب جلسان أو يجو قيب كصدر ياريان برنامجك باي حساب بدن بيلا هذا هاي لو قدو دين ويكون هذا ليان waxyaabo badan oo aanay dadka ducaada yoogeen iyagu dhexdooda ka ogyihiin warar badan bay ka keenayaan marka dhalinyaradana iyagana waxa ku boorin lahaa inay la shaqeeyaan walaalaha ihsaan oo ay garab istaagaan oo ay dacwada kala qayb qaataan oo waxa weeyaan dacwatul fardiga iyo hablaha aan xijaabnayn magaalada ka buux hableemkooda munaqabaada bay hor fadhiya oo wanaagsan dadka yimaada meelaha khayrka la yimaada ee muxaadaraadka yimaada masaajidada yimaadana waa dadkii toosnaa laakiin dad badan oo diinta iyo dacwada u baahan oo waxa weeyaan in la gaarsiiyo u baahan ayaa maqan gabadh waliba inay hadaf ka dhigato inay gabadh walaasheeda u soo xijaabto
oo ay ku soo xidho munadamatul ixsaan iyo allahumma salli calaa maxamed muxaadaraadkeeda billaha ah oo ay gabadh waliba daaciyad halkay taagan tahay ay ku noqoto waayo rasuulkeena risaalada waynu la leenahay calayhi salaatu wasalaam dhammaanteen waynu la leenahay rasuulkuna wuxuu lahaa balliquu canii walow aayadna ha noqotee ummadda waxaa layga gaadhsiiyey buu lahaa xabiibkeena calayhi salaatu wasalaam waxaan kaloo idinku boorin lahaa gabadhlaha muslimaadka halkan fadhiya inay diintooda bartaan ay aqoon buuxda ay u yeeshaan waqti iyo juhd iyo dadaalna ay ku bixiyaan ilaahayna subxaana watacaala qowl iyo ficilba wuxuu faray inay ula yimaadaan wuxuu ilaahay ka reebayna inay ka harsoonaadaan ilaahay cabsidiisana kula dardaarmaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu